kulan ballaaran oo isugu yimaadeen jaaliyadda qurba joogta ee ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ee dalkani Kenya ayaa waxay si xoogan ugu taageereen shirka Khaatumo laba. Shirkaasi oo lagu wado dhawaan inuu ka furmo magaalada taariikhiga ah ee Taleex. Shirkani oo ay soo qabanqaabiyeen guddiga jaaliyadda Nairobi iyo ururada dhalinyarada ayaa waxaa sidoo kale lagu sabootinayay xubno qurba joog ah oo ka kala yimid daafaha dunida, kuwaasi oo ka qayb galayay shirka Khaatumo. kulankan muddo saacadaha soconayay ayaa waxaa hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiin iyo waxgarad kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xogayaha jaaliyadda Nairobi, gudoomiyaha jaaliyadda SSC ee Minnesota, xubno ka socda jaaliyadda UK iyo waxgarad kale. shirkan hadaba aynu imika u fadhino ujeedada aynu u fadhino aynu uga soo qayb galay waxa weeyaan inaynu muujino taageerada buuxda ee aynu u hayno shirweynaha Khaatumo ee ka dhacay magaalada Taleex. shirweynaha saad ka warqabtaanba waxaa laga akhrinsanayaa ama lagu gorfaynayaa sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka faraha badan ee ka jira deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn, isla markaana ay u noqon lahaayeen inay ama buuxiyaan ama ay hantaan kaalintii bulshada Soomaaliyeed ay ku lahayd dadweynaha goboladaas ay ka soo jeedaan. mar haddii shirweynihii Taleex Khaatumo uu inoo qabsoomay ama uu inoo soconay ama inoo furmay, bulshada inteeda kale ee fursadda aan u helin inay ka qayb galaan shirweynaha waxaa qurux badan inay qabtaan kulanno iyo shirar ay ku gorfaynayaan isla qadiyadda ka dhacaysa ama lagu gorfaynayo magaalada Taleex ee shirweynaha Khaatumo, inay muujiyaan taageerada ay u hayaan oo dhinac walba, inay wixii ay talageliye ah ee ay u jeedinayaan ka qaybgalayaasha shirweynaha Taleex ka soconaya ay u jeediyaan, inay u muujiyaan inay barbar taagan yihiin oo ay ku taageersan yihiin shirka iyo madasha loo fadhiyo sidii loogu arkisan lahaa dhibaatooyinka ka jira goboladaas iyo gabi ahaanba bulshada Soomaaliyeed dhibaatada ku baahday 20 sanadood inta ka badan. shirkan Khaatumo laba ayaa waxaa lagu wadaa inuu si rasmi ah uga furmo magaalada Taleex 4 bishan, waxaana shirkaasi ku arrinsanaya beelaha ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn, iyadoo halkaasi ay haatan ku soo wada dhamaadeen dhammaan beergooyinkii ka qayb gali lahaa shirkaasi. dhanka kale waxaa iyana shir jaraa'id ay maanta ku qabteen magaalada Nairobi taageero ballaaran u soo jeediyay shirka Khaatumo laba mas'uuliyiin iyo waxgarad kala duwan oo ay ka soo jeeda beesha Axmed Harti ee Dashiishe. kulamadan lagu taageerayay shirka Khaatumo laba ee lagu wado inuu dhawaan ka furmo magaalada Taleex ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli ay walaac ba'an ka muujinayaan shirka Khaatumo xubno u hadlay maamulka Somaliland, inkasta oo aanay wax saameyn ku yeelan qabanqaabada iyo diyaargarowga shirkan oo si xoogan uga soconaya dhammaan deegaamada SSC. Abdiraxmaan Soomaali, Royal TV, Nairobi, Kenya.